السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة الكمركة للسود واده أدي هذا ومهتسنتين. ما أنت واسبتي وأنا صدحي طبعا كبيش السجارة سبتمبر سنة كلابا كون يشان يلا باتنك. مقال كان وحن ربائنا ندي كل وداجو. نينكي إسكود دايي إنه ترام دلو بشي سجالات سبتمبر شان يتومن كيدي سنة كي هوري حل ترام جولف وكعياري حرون تيس وكل هي فلوريدا ومركي دمبا askari ka tirsan ciidamada ilaaliya madaxweynaha ee Secret Service ku arkay xabad ku riday ninkiina cararay kadibna la soo qabtay maxkamadeyntiisii ayaa Khamiistii bilaabatay waxyaabo la yaab leh ayaa maxkamadeynta ninkan laga soo calaameynaya waxyaabahaas maxay yihiin ninkan isaga ayaa ismatalaya waan ogaan doonaa arrimahaas siday u dhacayaan sidoo kalena hadaladiisii furitaanka ee maxkamadda Khamiistii markii uu bilaabay isla markiiba garsoorihii ayaa hadalkiisa joojisay sababta loo joojiyay maxay tahay dacwadaha uu ninkan wajahayo maxay yihiin muxuu mutaysan karaa hadii lagu helo arrimahaasi oo ayaan idinla wadaagaya waa sheeko la yaab leh bal si fiican u daawo marka hore soo dhaw waxa jirtay madaxweyne Trump xilligii ololaha doorashada uu ku jiray waliba bilihii ugu dambeeyay lagu jiray in bishii 15keedii sanadkii 2024 madaxweyne Trump oo golf ku ciyaaraya xaruntiisa Trump International Golf Club ولا عيارة يوليبا نين أي صاحبها ين ومالقبين ستيف ويتكوف ليرادو ترامنا مركي وجولستي ومجعبين كاسي إرجع بريجا دح وقابل سن إنه النقطة وهذا روشكا حتى دجالك يوكرين وكل جرا لا بجر لودري عاصمة موسكو وسو بوتين ولا كل ما أي مركز جولف كلا عياري نين وحجري مركا نين كان لسوق بتي ومجعيس ليرادو راين ويسلي روث وكنتن يسجل جرا إن ودوني إن ترام دلو ninkan waxa uu sameeyay meel kayma ah oo goobasha golofka uu ku ciyaariyay Trump uu galay qorigiisa ayuu qaatay waxa la leeyahay 10 saacadood ayuu halkaasi ku jiray waxa uu sugayay Trump inta uu u soo dhawaanayo meesha jiqda ah uu ku jiray isla markaana waxa uu doonayay inuu Trump toogto markii dambe madaxweynaha waxa ka horeeyay ciidamada ilaaliya ee Secret Service-ka ciidamada nin kamid ah oo magaciisa la yiraahdo Roberto Farcano ciidamada Secret Service-ka ayaa arkay ninkan oo meesha ku dhuumaaleysanaya qorigiisana silig meesha ku yilay duuntiisa ay ka soo taagan tahay marka inta Trump uu u soo dhawaanaya ayuu sugayay waxa uu doonayay in uu toogto askariga ayaa xabad ku riday ninkii qorigii waa uu ka cararay kadibna qof shacab ayaa wuxuu arkay ninkan oo sii ordaya gaarigii uu watay iyo taargadiisa ayuu sawir ka qaaday booliska ayuu u sheegay isla markiiba wadada highway-ga ayaa 45 daqiiqo kadib lagu soo qabtay waatan markii booliska ay soo qabanayeen iyadoo la yiri gacmaha kor u taag funaanadaada kor u qaad halkaasina lagu soo xiray marka ku dhawaad sanad ayaa hadda ninkan u xirnaa hadda September 15keedii maanta waa 13 maalmood ayaa nooga harsan maxkamadeyntiisa ayaa marka Khamiistii bilaabatay xeerbeegti ayaa la xulay ilaa iyo 12 ruux 7 haween iyo 5 rag iyo 4 kayd ah oo hadii qof xanuunsado qof dani ku soo baxdo bedeli doona garsooraha dhageysanaysa dacwadahan waa dacwada federaal ah garsooruhuna waa federaal maxkamadaha federaalka kaamarooyin looma ogola sidaan ognahay in lala galo waxa jira qof sawir gacmeedka ku takhasusay sketch artist la yiraahdo isla markaana sawiraya hadba sida maxkamadda ay wax uga dhacayaan eedeysanaha dacwadoogayaasha qareenada u doodaya xerbeegtida garsooraha isaga ayaa sawir gacmeed ku sameynaya marka sketch artist ayaa la yiraahdaa maxkamaduhu markay hor gobol yihiin waa laga yaabaa hadii garsooruhu uu ogolaado in camera lala galo in la soo duubo laakiin kuwa federaalka kaamarooyin gudaha looma ogolo marka intii ay socotay xulista xirbeegtida ninkan isaga ayaa ismatalaya wuxuu yiri wax qareena ma rabo aniga isaguna wax background oo dhinaca sharciga ma uusan soo baran aniga ayaa ismatalaya yiri xirbeegtida marka la xulayo waxaan ognahay su'aalo ay dacwadoogayaashuna weydiiyaan dadka u doodayo qofka eedeysan ay weydiiyaan maadaama ninkan aan loo dooday oo isaguna isku doodayo isaga ayaa su'aalo weydiinay garsooruhu marka su'aalaha ay u diiday ninkan Ryan Ruth la yiraahdo inuu xirbeegtida weydiiyo waxa kamid ahayd isku daygii Trump uu isku dayay in Greenland uu la soo wareego iyo waliba xirbeegtida mowqifkooda ay ka taagan yihiin dalka Falastiin garsooruhu ay u diiday iyo sidoo kale su'aal ahayd adigoo gaari wata wadada dhexdeeda diidin hadii aad ku aragto maxaad sameyn lahayd garsooruhu waxay ku tiri su'aalahaasi oo idil xirbeegtida ma weydiin kartid waa tahay ninkan marka dambiyada federaalka uu ku eedeysan yahay maxay yihiin ninkan dambiyada federaalka uu ku eedeysan yahay waxa kamid ah isku day dil oo uu doonayay in qof madaxtinimada Mareykanka u sharaxan inuu dilo markaas Trump u sharaxayo laakiin hadda waa madaxweyne qodobka labaadna wuxuu waa 5 dambiyada uu ku eedeysay midka labaadna wuxuu yahay
in uu haystay qori uu doonayay dembi qalalaasa dhali kara inuu ku geysto waayo haddii xilligaasi Trump la dili lahaa qof madaxweyne u sharaxan taageerayaashiisu maxay samayn lahaayeen qalalaasa ayaa halkaasi ka dhalan lahaa wadankana waxaa laga yaabaa in qalalaasan weyn uu gali lahaa maadaama Trump taageero fara badan uu leeyahay qodobka saddexaad uu ku eedeysan yahay waxay tahay inuu haystay qori uu ka tirtiray serial numberkii macnaha wuxuu isdahayay marka aad disho fako serial numberkiina waa uu tirtiray laakiin waa markii dambe waa la helo serial numberka waa la aqoonsaday marka waa dambiga saddexaad uu ku eedeysan yahay midka afraadna waxa uu yahay sidoo kalena inuu ahaa qof dambiile ah oo isaguna haystay qori iyo weliba hub intaasi ayay kala ahaayeen dambiyada kala duwan oo ninkan shanta dambi ee kala duwan ee lagu soo eedeeyay waxaa jiray sidoo kale attempted assault of federal officer inuu isku dayay sidoo kalena saraakiil federaal ah inuu dhibaateeyo waxay kuwa secret service-ka ee la shaqeynayay madaxweynaha ilaalinaya marka shantaasi dambi oo kala duwan ayaa uu ku eedeysan yahay haddii lagu helo dambiyadaasi xabsi daa'in ayuu mutaysan karaa haddaba maalintii furitaanka maxkamadda marka maxaa dhacay waxaa laga yaabaa maxkamaddu inay socoto 3 toddobaad iyo bar ilaa iyo 4 toddobaad inay socoto laakiin qareenadu waxay leeyihiin maxkamad la yaab leh la isku diyaariyo maadaama ninkan isagu uu ismatalayo oo aysan jirin qof matalaysa garsoore Ellen Cannon waxay ku amartay ninkan eedeysanaha oo isagu ismatalaya in uusan ka soo bixi ka kursigiisa uusan ka soo kici karin amaba sidoo kalena meesha uu fadhiyo aan loogu talagelin inuu ka soo kaco waayo qofka qareenada waxaa loo ogol yahay inay maxkamadda dhex socdaan markay hadlayaan laakiin isagu maadaama eedeysanayo yahay isaguna uu ismatalayo waxaa la yiri kursigaada inaad ka soo kacdo laguma ogolo haddaba maalintii furitaanka khamiistii ayay maxkamaddu ay furantay markii maxkamaddu furatay dacwadoogayaashu waxay soo jeediyeen kiiskooda ku-xigeenka dacwadoogaha ninka la yiraahdo John Shibley ayaa waxa uu yiri haddii uusan ahaan lahayn askarigan ka tirsan ciidamada Secret Service ee madaxweynaha ilaaliya oo la yiraahdo Farcano madaxweyne Trump maalintaasi waa uu dhiman lahaa kullee waqtigiisa qof waliba waqtigiisa markuu dhamaado ayuu dhimanayaa waxaa sidoo kale jirtay in ninkan ka tirsan ciidamada ilaalada madaxweynaha ee Secret Service-ka uu sheegay in isagu uu fashiliyay weerarkaasi la doonayay in Trump lagu dilo maadaama markii uu arkay ninkan uu qorigiisa meesha uu ka soo taagan yahay uu xabad ku riday ninkan markii uu arkay in la ogaado uu halkaasi ka cararay marka waxa uu yiri waxaan u baqay nafsadda madaxweynaha iyo waliba nafsadeyda sidaas ayaa sababtay in aan xabadda aan ku rido marka dacwadoogayaashu waxay yiraahdeen ninkan Ryan Truth la yiraahdo arrintan muddo ayuu qorsheynayay waxay yiraahdeen muddo toddobaadyo ah ayuu qorsheynayay 17 mar oo kala duwan ayuu tagay Trump International Golf Club oo ilaaleysanaya xilliga uu yimaado xilliga uu ku ciyaaro marka 17 mar oo kala duwan ayuu tagay marka waxa yiri ma jirto sabab kale oo u tagay oo aan ahayn in uu dilo madaxweyne Trump intaasi oo idil qorshihiisa ayay kamid ahayd waxauna halkaas u tagayay in uu dilo waxa sidoo kale la wareystay maalintii maxkamadda furitaanka ee khamiista ahayd ninkii marqaatiga ah ee markii uu cararayay gaarigii uu watayna sheegay taargadiisana sawir ka qaaday oo la wadaagay ciidamada markaasi goobta joogay ninkaasi ayaa sidoo kale maxkamadda la weydiiyay waxaana la arkayay markii la wareystay kadib Ryan Ruth oo sidoo kalena qofkaasi marqaatiga amaanaya wuxuu yiri shaqo wanaagsan ayaa qabatay geesi Americana ayaa tahay waana ku faraxsanahay dadaalkaada sidoo kalena askariga Secret Service-ka oo madaxweynaha ciidamada ilaalinayay ayaa sidoo kale wuxuu yiri waan ku faraxsanahay inaad nooshahay qoyskaadana sidoo kale waa ay ku faraxsan yihiin inaad nooshahay marka macnaha wuxuu ula jeedaa adiga xitaa waxa laga yaabi lahaa in maalintaasi aad dhiman lahayd marka hadal markii la yiri qofka waxa la siiyay marka Ryan Ruth in isagu hadlo hadaladiisa furitaanka uu halkaasi ka jeediyo qofka hadii qareen u doodaya qareenka ayaa hadalada furitaanka jeediya marka hadalkiisa markii uu bilaabay ayaa waxa uu bilaabay inuu tixraac ka dhigto madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin Hitler iyo sidoo kale Netanyahu arintaasi marka garsooraha ayaa hadalkii ka istaajisay 40 daqiiqo inuu hadlo ay ahayd 5 daqiiqo markii uu waday ayaa laga istaajiyay xirbeegtidana waxay tiri qol kale iska aada markaas kadib waxay tiri maxkamadda xuduudeeda waa inaad ku xadgudbin isla markaana aad hadashaa marka meel qaldan ayuu ka bilaabay garsooruhu marka waxay tiri maadaama meel qaldan aad ka bilowday sidaas darteed hadalladii furitaanka waa laga joojiyay mana sii hadli kartid sidaas inkastoo markii dambe uu raaligelin ka bixiyay marka waxyaabaha la yaab kale oo uu yiri waxa kamid ah ninkan si aan nafsadeeda aan u badbaadiyo waxa aan doonaya ayuu yiri in kulan feer ah madaxweyne Trump iyo aniga loo ballamiyo ama aan ku tartanno golf
sidaas darteed waxa uu yiri in ma doonayo inaan aniga xabsi daa'in ama laygu xukumo marka Trump bal halay ballamiyo ama aan golof la ciyaaro haddii aan ka badiyo macnaha waxay tahay inaan badbaadayo ama kulan feer ah hana loo ballamiyo marka arrintaasina lagama yeelin arrintaasi la yaab kale maxkamadaasi khamiistii ayay furantay hadda isniinta ayaa mar kale dib la isugu soo laaban doonaa Florida ayay ka socotaa waxyaabaha ka soo kordho iyo xukunkaasi maadaama ninkan uu doonayay inuu Trump dilo laakiin la ogaaday markaas kadibna uu cararay oo la soo qabtay waan arki doonaa halka ay ku dhamaato iyo sidoo kalena in dambiyada haddii lagu wada helo dhammaanba dambiyadan shanta ee lagu soo eeday aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo